wafdigii ballaadhnaa ee ka socday waddanka Somaliland ee dhawaanaha qaaradda Yurub booqashooyinka ku marayay ayaa soo gaadhay dalka Sweden halkaasoo wafdigu ay booqashadan Scandinavian-ka ay ku yimaadeen ay ka bilaabmayso magaalada Stockholm ee cariga Sweden haddaba afhayeenka wafdiga ayaa waxaan jecelnahay iyo guud ahaan bal hawlaha wafdiga inta ay joogaan Sweden iyo dalalka Scandinavian-ka in aan ka wareysto cadaani oo aan iraahdo ku soo dhaw telefishinka qaranka waxaad naga warataa bal booqashadana ku timaadeen dalka Sweden bismillaahir rahmaanir rahiim booqashadan ku waa mid iska cad oo bariyaha socotay laakiin ugu horeyn waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo safiirka Jamhuuriyadda Soomaaliland halkan u joogta Rooda waxaan kaloo jeclahay inaan u mahadnaqo run ahaantii dadkan xooga badan ee rag iyo hablaba isugu jira ee nagu soo dhaweeyay Stockholm socodkan aanu joogno oo runtii mid aan koobi karin mahadnaqaano waxaan ku dhahdaa aan u qabno anagu waxaan u soconaa waa wadadii Ceergaabo waxaan nahay gudidii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu magacaabay wadada Burco iyo Ceergaabo isku xidha muddana aan wareegnay dhinaca UK imakana UK hawlaheedii ay noo soo dhamaadeen midad in yaroo London gudaheeda aan kulay dib ugu noqon doono mooyaane tripkayagii xigeenna uu hadda halkan ka bilaabmay ilaa aan mari doono Oslo Norway iyo Holland marka waxaan u soconaa waa tabliiqiin baan nahay tabliiqiintu wixii la siiyana way qaadaan fariintii ay sideen way dhiibaan marka runtii waxaan u soconaa waa caynkaas waa mid ummadda Soomaaliland oo dhami ay ka jawaabtay baaqii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu fidiyay wadada Laxaadka iyo mashruucii ugu weynaa ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee tamgareysama isku daydaba sidii muddada 23 sanadooda runtiina dalkiina hawl weyn ay ka socoto dabadiisina maxaan ku dhahdaa aan groupka iyaguna marayno meelaha kale oo kala faro badan loo kala baxayo marka aad iyo aad baan idin salaamayaa Rooda safiirka gudida halkan qaban qaabada ee muddada hawsha ku jirtay iyo reer Stockholm oo dhan soo dhaweynta qiimaha leh ay nagu soo dhaweeyeen waxaan halkaas isaguna erey ka jeediyay Ibrahim Aadan oo kamid ahaa qaban qaabiyaasha wafdiga ku soo dhaweey dalkan Sweden Ibrahim adiguna kelmadda aad ka oranayso wafdiga soo dhaweyntiisa maxaa kamid ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمانتين ساعة الوزير وفدي كل صعوطة لمانتين والحمد لله هاي سود وهذا كسود وهذا ستوكهولم كسود وهذا سويدن وضد عرقابه ساعة الوزير هذا شيء وحويا هالبولها سومالان هذا اللي كقولي سنة هوشاس وحبذا باي ناقب سومية ودي كيني ما كلاقوان دت كيني با آدو كالفوق marka laga sheekeeyo dad fara badan waxay yiraahdaan waxyaabo cajiibka waxa kamid ah in aynu basashiyo baradhada kala soo degno Ethiopia iyadoo maanta inooga baxday Ceergaabo wax cajiib weeyaan 6 saacadood gudahood loo keenin kara Hargeysa iyo Burco hawl wanaagsan baa wadaan aad baan ugu faraxsanahay reer Sweden anigoo magacooda ku hadlayana hiil iyo hoobaan la barbar taaganay waxaanu idin kala haraynaa ma jirto soo dhawaada iminkana waxaan jecelahay ku soo dhaweeyay safiirka Somaliland ee Sweden Rooda وماسنتين وحن جعلنا إنهم كسر دوية وفتدان إنه قصو استعاشي إلا يوضنكي سوماليلاند هذا نوجودو إنجليزيا وحن كفر حسنا هاي لأن فرصة ده إنه هلا نجلسوا قريب جلعان إن الشركة اللقاء من قابلنا يو وضدا تقدر يسناج وحن كفر حسنا هاي إنه وسير الدولة مالية ده عداني نلتشوجو يوجد كرينت هذا كان لسعته dheeraad oran maayo horta ku soo dhawaada Sweden Stockholm insha Allah waxaan rajaynaynaa waxaad u timaadeen inaad guul ka gaadhaan ku soo dhawaada masaxad salaan horta marka hore u dhiraya dhammaan dadweynaha Somaliland gaar ahaan wafdida sharafta leh maanta dhala joogta halkan annagoo ka ah dhamaanta iyo halkan soo reer Somaliland annagoo ama annagoo ah gudidii wadada Ceergaabo gaar ahaan waxaanu jeclaanay inaanu soo dhaweyno si kal iyo laaba soo dhaweyno martida noo timi waana mahadsan yihiin wafdiga ayaa waxa ku soo biiray Cabdiraxmaan Maxamed Aadan oo ah agaasimaha guud ee telefishinka qaranka ee qaaradda Yurub Cabdiraxmaan ayaa isaguna waxa uu kamid yahay wafdigan isagoo agaasimaha guud ee telefishinka qarankana ah bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdikariim aad baan kugu mahadnaqayaa adiga iyo gudoomiyaha jaaliyadda زلدا سكرية حسن وعيس لما أنتي وما سنتهين
yes waa runtaa waxaan ka mid ahay wafdigan oo uu hogaaminayo wasiir cismaan saxardiid cadaani cali gabiley ilhaan maxamed jaamac iyo sacdiya dabcan hawsha TV-ga qaranka ka mid tahay inaynu wafdiga la shaqeyno oo aynu meel walba kala shaqeyno UK waan la soconay si fiican bay noogu dhacday waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay ka dhigo halkan intay joogaan Sweden iyo Norway haddii Ilaahay ka dhigo inaan wafdiga la socono haddii Ilaahay ka dhigo aanu campaign-ka wadada isku xidhayso Burco iyo Ceerigaabo ay si fiican noogu dhacdo dabcan kama marna intaan halkan joogo Sweden inaynu hawlaha TV-ga iyo sidii hawlaha TV-ga qaranka loo dardargelin lahaa aynu iska aragno Cabdikariin iyo adiga iyo cidii kale halkan ka hawlka shaba aynu iska aragno marka socodku intaas runtii ku koobiye marka wafdiga waxaad u gudbi doontaan magaalada Oslo ee wadanka Norway oo qorshaha idin ku jirta maalinta Sabtida insha Allah ha shirka u horeeya wuxuu ka dhacayaa halkan oo ka dhacayaa maalinta Jimcaha haddii Ilaahay ka dhigo shirkaasi markuu dhaco waxaanu dabadna wafdigu waan baxaysaa magaalada Oslo ee dalka Norway halkaas oo shirka kale Scandinavian ka dhacayo maalinta Sabtida soo socota haddii Ilaahay ka dhigo أحد أي وفتي هالك كنا قلنا سهدي لها كديجو دبنا واحد أجود بدونتا طبعا كبيشة دلك هولن أو شالية فرانسيسكا يو هولن يو جرماني بقى يسوي منيان هالكاس أو شركة قدام بيا أو كدعي دونا هدي لها كديجو بيش كوبي تون كده هالكن واحد كسر دوي أقسمها إن سكريا حسن وعيس أو قدوميها دلالة جود سومالي لان رئيس فربند كورن قابضة إلا إيه هذا وفدقة إنه يمي وده تقدر يسكو حد دون تأرجع بقارن رونت هذا إن الرئيس هان إذا كنا ديارجرو جنو سيدبويها. إن أديات بعض ما سنتي عبد الكريم إن أرتا مركورة وحن كسودو إن أقسمها جود تنفيش قارن كا قارة يوروب إن عبد الرحمن محمد آدم سودو إن سيدو كله وحن سودو إن وفدقة بلارنا وسير دولة مالية وهجاميني haddii aan dib ugu noqdo su'aashaada oo ah maxay diyaar garowgayga waxa jirtaba in muddo ah in guddi kumeel gaara oo hawshaasi loo xil saaray ay maamulisay kana soo shaqeynaysay bishii ugu dambeysay run ahaantiina Cabdikariin oo kullee waad la socotaa diyaar garowgaygu aad buu ballaaran yahay kumana koobnaanayo oo kaliya Stockholm caasimadda waxa la iskaga imanayaa gobolada dalka Sweden waxaanu rajaynaynaa in guul laga gaari doono qayb weyn ka qaadan doono qaaraanka iyo dhismaha wadada isku xidha Burco iyo Ceerigaabo taasoo anagu aan isleenahay rees weyn ahaan kaalinta koowaad ayaad ka gali doontaan insha Allah marka hawshaasi wax weeyaan hawl aan si aad uga soo shaqeynay run ahaantiina waxaan leenahay waftiga soo dhawaada ummadda iyo shacabweynaha Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa in ay iyagu wax qabsan karaan dalalkan ay joognana waxa lagu dhisay waa cashuurta iyo contribution kala iska ururiyo waxaanu aaminsanahay wadada Ceerigaabo iyo wixii kale ee dalkeenaba inaan wada qabsan karno haddii aan isku xidhnaano qurba joog iyo inta dalkii joogtaba run ahaantii saasan laahay dalmar telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Stockholm ariga Sweden